noloshu waa sida baaskiil wadista. Si aad u hesho dheelitirkaaga, waa inaad sii wadataa dhaqaaqaaga. Marka albaab la xiro, mid kale ayaa furma. Laakiin marar badan ayaa dib u milicsanaa, inagoo ka xun albaabka xiran oo aanan arkin midka noola furay. Inta badan dadka awooda in ay ka farxiyaan nafsadooda waa kuwa fiiriya wax gacantooda ku jira ee aan fiirin wax gacanta dadka kale ku jira. Noloshu waa horumar, ma ahan saldhig. Waqtigaagu waa mid xadidan, sidaa daraaddeed ha ku lumin in aad ku noolaato nolosha qof kale. Labada maalmood ee ugu muhiimsan noloshaada waa maalinta aad dhalatay iyo maalinta aad ogaatay sababta. Rajada ugu weyn ee nolosha waa in aad samaysaa wax ay dadku ku yiraahdaan in aadan samayn karin. Ha daawan saacadda, samee wax ay samaynayso oo soco. Dadku waxay beddelaan wejiyadooda maalin kasta. Ha ku eegin qiimahaaga wejiyada dadka. Beddel fikradahaaga oo waxaad beddelaysaa adduunka. Indhahaaga ku hay xidigaha, cagahaagana dhulka. Waxaa fiican in aad libaax noqoto hal maalin, halka aad ahaan lahayd ido noloshaada oo dhan. Noloshu waa su'aal, sida aan u noolnahay waa jawaabkeena. Ceeb ma ahan in aad dhacdo, balse waxaa ceeb ah in aad kici waydo.